وتشجي لبدي مع المواد الصودا في وسعودي وكل ما يقول صاد مقشين وحن إسلق جارني إن كشقين دنت جود يوم هذا الصوماليات إن كم يدونه دور أهرمات ومهمة إن وشقينه صومالي ماذا إن وشقينه وحن كوه شينه إلى سوء تنازلنا وحن كوه شينه يبقى ماذا الصومالي هيستوى أمن حماده إن كوه شقينه وأن policy جود أما سياسة جود أن كله عنه سيدي أن بل كان نبض وصل دبال لهين وماذا الصومالي ننول في أن وجوه جامل لهين waxaan ka hadalnay arinta ugu culus oo hadda haysata abaaraha oo Ilaahay aan ka baryayno inuu naga dul qaado waxa keen abaaraha qayb ahaan waa colaad marka hadaan ammaanka xalino waxaan aamsanahay colaadaas qorshe loo sameeyo abaarahaas iyo faqriga dhibaatada Soomaaliya haysata inaan xal ka gaari karno waxaan ku heshiinay inaan isku tashanno inaan garbaha isqabsanno gacmaha isqabsanno ee ummadda Soomaaliyeed aan u shaqeyno dan shakhsi ah dan gaar ahaan aan ka tagno بعدما أمد الصوماليات كل جود مسوود إيجايان إن الحل أكينه وحن كل شيء إن هالجلادة سيدك دقيقة إنه بلاونه وأمد الصوماليات أبارها دبعتين أنجارسينه أنا سود يارنه قلنا أن بديت كأه أنا سود يارنه سيدي مراها هيستان وأمد كل دبعتين أيان عن وضل قانه باش عالم كمرك باش عالم وحي هذين يسا وحي تاي annaga inaan xalki keenno hadaan Soomaalinahay cid kale oo noo keenaysa xal ma jiraan cid kale oo dalka noo difaacaysa ma jiraan cid kale oo dhaqaale noo keenaysa ma jiraan waxa weeye waxaas oo dhan waxa laga rabaa waa annaga iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo taageera dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyaguna waad mahadsantihiin insha Allah waxaan rajaynaynaa inay Soomaaliya dibka ka baxdo waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu duceynaynaa in abaarahan iyo colaadan Ilaah ka dul qaado شركة لندن أهمية سياسية لو كتجي لها مكوضة عشان محاس كصبر. شركة وصابت عن سوون لمت إن أنت جنو أنه هل وجيه أنه وصلنا أنه كشقين دنجود أو صوماليات أنه محاك وراح هذا كشقين أن سيد ذلك أن بدليو وصوب تبع اللهين سووا نقصيها بدن عالم كان وقعد صلنا هنا قعدنا وسيا وما تنتهي. وحكون كشر قدومنا مدحونها جمهورية الفدرالية الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed sheekh Ismaaciil Jawaari ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre madaxweynaha Puntland mudane Cabdulle Maxamed Cali Gaas madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Cosoble iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug ahna kusimaha madaxweynaha mudane Maxamed Xaashi Cabdi kulankan ayaa diiradda lagu saaray abaaraha ka taagan dalka dib u habeynta hanaanka guud ee heerarka kala duwan ee hay'adaha amniga qaranka la dagaalanka kooxaha nabadiidka iyo dhammaan ururada argagixisada caalamiga ah waxa kale oo looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka kobcinta dhaqaalaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo xoojinta xiriirka ka dhaxeeya dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada shirkan labada maalmood socday qodobadii ka soo baxay waxa ka mid ahaa madaxdu waxay walaac ka muujisay xaaladda abaarta ee ka sii daraysa taasoo galaafatay nolosha dad iyo dunyo fara badan keentayna barakac baahsan madaxdu waxay bogaadiyeen dadaalada iyo gurmadka ay hormuudka ka yihiin shacabka Soomaaliyeed gudo iyo dibadba iyo beesha caalamka madaxdu waxa ay garwaaqsatay baahida degdeg ah ee loo qabay in la xoojiyo dadaalada lagu badbaadinayo nolosha dadka tabaalaysan waxaana la isla gartay in loo baahan yahay qorshe cad oo looga hortagayo abaaraha soo noqnoqday madaxdu waxa ay rajo wanaagsan ka muujiyeen geedi socodka siyaasadeed ee dalka iyo wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhaxaysa madaxda federaalka iyo madaxda dawlad goboleedyada madaxdu iyaga oo tixgelinaya xasiloonida dalka iyo mabaadi'da dib u heshiisiinta waxa ay dhiiri gelinayaan wada hadalka dawlad goboleedka Galmudug iyo ahlu sunna wal jamaaca madaxdu waxay isku raaceen siyaasadda amniga qaranka iyo hanaanka loo marayo hirgelintiisa taasoo ay garwadeen ka noqonayaan golaha amniga qaranka madaxdu waxay ansixiyeen qaab dhismeedka cusub ee golaha amniga qaranka oo uu gudoomiye u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxdu waxa ay sidoo kale go'aamiyeen dhismaha golayaasha amni ee heer dawlad goboleed oo ay gudoomiyayaal u yihiin madaxweynayaasha dawlad goboleedyada
madaxdu waxay isla garteen in si degdega loo sameeyo qorshe howlgal ciidan oo midaysan kaasoo lagu furayo waddooyinka halbowlaha u ah isku socodka dalka iyo xaqiijinta gaarsiinta gargaarka abaaraha ee dadka abaaruhu ay saameeyeen bacdamaa ay kooxda argagixisada al-shabaab iyo kooxaha nabaddiidka ah ay isbaaro u dhigteen in dadkaasi gurmud la gaarsiiyo madaxdu waxay isla garteen in si degdega loo sameeyo qorshe howlgal ciidan oo midaysan taasoo lagu furayo waan ku celiyo qodobka madaxdu waxay isla garteen in si dhaqsa ah loo bilaabo loona dardargeliyo qorshaha hannaanka geedi socodka doorashada ee 2020 madaxdu waxay isku raaceen in kor loo qaado kobaca dhaqaalaha dakhliga shaqo abuurka dhiirigelinta maalgashiga iyo ganacsiga iyo weliba horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha madaxdu waxaa kale oo ay isku raaceen in muhiimad gaara la siiyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyadoo la adeegsanayo habab casri ah oo lagu ciribtirayo madaxdu waxay soo dhoweeyeen qorshaha horumarinta qaranka National Development Plan iyo mudnaantiisa waxayna isku raaceen in la sameeyo tirikoob dhab ah waxaa kale oo la isla gartay heshiisyada iskaashiga cusub New Partnership Agreement madaxdu waxay rajaynaysaa in beesha caalamku taageeraan go'aamada iyo qorshayaasha ay dawladda Soomaaliya mudnaanta gaarka ah siinayso ugu dambeyn waxa ay madaxdu uga mahadcelinayaan beesha caalamka taageerada joogtada ah oo ay la garab taagan tahay ummadda Soomaaliyeed dhammaad